وين سلقاني kusoo dhawaada qaybtii tobnaad ee sheekadii Manafai oo ah sheeko caan baxday oo uu qalinka u qaatay qoraaga Maxamed Daahir Afrax taasoo uu halkan ka soo jeedinayo Maxamed Xaji Xuseen Raagem. Qorraxda Maarso sidii caadada ahayd ayay gantaalaheeda kulul ugu garaacaysay nafleydii maalinta Muqdisho u soo harsatay. meel looga badbaadi karaa ma jiro. milicda dibadda ka holcaysa ayaa uumigeeda guryaha gudahooda u soo gudbinaysa. jaamac dhagay markuu gam waayay ayuu ka soo saarkacay sariirtii uu ku galgalanayay isagoo dhididkii korkiisa qooyay xabadkiisa weyn iyo qaarkiisa hore ka wada tifqayo. marwadiisa raaliyada ah Cambaro Cali Dhoof oo barxad ay kuleel yari biday darin ku jiiftay ayaa markii shanqartiisa ay maqashay isfududaysay. intay kacday bay kursi jiif banaanka ugu bixisay. waa kursi jiifkii uu waqtigaas oo kale jeclaa ee ka samaysnaa darbaal dhuuban diilimo kala midab leh madaxyada isu haya kuwaasoo adimaha uu ku fadhiyana yihiin alwaax guduudan isagoo macawis guntan shukumaan yarina garbaha u saaran yahay ayuu ku dhacdidsaday kursi jiifkii Cambaro u dhigtay hoos galbeedka naacawda yar ee macaan leh oo ka soo baxay guriga daydkiisa galbeed xiga banaanka weynina u dhaxeeyo isaga iyo guriga intiisa kale. geedihii banaankaas lagu beeray wali waa yar aan har yeelanin waayo guriga waqti dhow buu jaamac dhistay 2 sano uma buuxsan. Cambaro wali waxay ku hawlan tahay diyaarintii waxyaalihii odaygeedu u baahnaa. miisar bay soo agdhigtay baakadii sigaarku ugu jiray taraqi uu ku shidanayay iyo sigaar damiskii uu isaga ururinayay intaba miiskay u dul saartay. raadiyihii yaraana way ag qotumisay. wali waxa u dhima shaahi casriyaha oo ay diyaarintiisii jikada u gashay iyada mooyee cid kale oo dhaqdhaqaaqaysa ma muuqato. gabadhii adeegtada ahayd ee u shaqaynaysay suuq ay ku maqan tahay. intii ay iyagu hurdaan bay dambiishii la warwartay. markii ay qadadii ka soo jeesatay bay tii cashadii dambiisha u qaadatay sidii caadada u ahayd. harsi iyo nasasho iyada uma jiraan. carruurtiina way wada jiifaan. xataa kii hurdo iska waaya sariirta kama soo kici karo ilaa la gaaro 4:15. waa anshax lagu cadbiyay oo aysan ka leexan karin. siiba marka odaygu joogo kuma dhacaan inay ka leexdaan anshaxii u baray. hadalka iyo dhaqdhaqaaqaba way la gabadaan. waqtiyaduna way u kala xisaaban yihiin. waqtiga hurdada, waqtiga duruusta la akhrisanayo iyo wixii la mid ah. laakiinse marka odaygu maqan yahay siday doonaan bay u buuqaan. waqtiyadaasna badanaaba ma kala ilaaliyaan inkastoo sida ay u kala waaweyn yihiin ay isugu digaan iskuna cabsiyaan. caban ku sheegaya habarta sida badan kama xarig xirtaan cabsi weynna kama qabaan inkastoo markay canaanato amarkeeda ay u hoggaansamaan. kalgacaylka xaddaafka ah ee ay u qabaan iyo sida joogtada ah ee ay uga agdhow yihiin ayaa malaha dabooshay cabsida ay ka qabi lahaayeen. marka odaygu maqan yahay qofka kaliya ee ay ka cabsadaan waa injineer Axmed oo curadka reerka ah. siiba intii uu dibadda ka soo laabtay isagoo nin weyn noqday wuxuu la yeeshay haybad gaar ah. jaamac dhagay naacawdi macaanay iyo shaahi udgoona ee afadiisu u keentay markay madax u dejiyeen ayuu wax soo go'day. markaasuu saacadii aaday. wali waa maalin weyn 4tii galabnimo daqiiqado yar bay dhaaftay. ma dhow saacadii uu isdiyaarin lahaa 5:15 ayuu soo marayaa saaxiibka Cawaale sidii uu saaka telefoonka ugu sheegay. jaamac waxaa ku kulmay maskaxdiisa oo telefoonkii Cawaale ku soo dhacay iyo indhihiisa oo ku dhacay afadiisa Cambaro oo inta meel 5 talaabo u jirta darin yar ku fariisatay harqad qabyo u ahayd dabac ku tulays laan ubax ah oo mara buluug ah qalin qori ku dul sawiran yahay baydun dhowr midab ah la raacisay. iyada hawsheedii ku sii jeeda ayuu ka ilbuuxsaday. diriceeda dhulka daadsan iyo jirkeeda sida qaab darrada ah u cayilay ee cadba dhinac u fuuray. wuxuu milicsaday dhabanadeedii waa arki jiray iyagoo dhalaalaya. cimriyowba waa kuwaas duuduubka yeeshay. xaribihii cukanaan jiray waa kuwaas harwashka dhigay. amankii cudoonaan jiray isagoo il naxariis la ku eegaya oo sidii qof uu beri aqoon jiray sanooyinkaansi arag kor iyo hoos ka jeedaalinaya ayaa ku soo dhacay. markaasuu isu qoslay. haddana intuu isqabtay buu wejigeeda ishaqac ku siiyay. wuxuu ka baqay inay qosolkiisa daraantay. ma jeclayn inay ku soo jeesato. markuu hubsaday inay hawsheeda ku maqan tahay ayuu kursigii dib ugu dhacdiisay. masaakiin Cambaro alla cuqubadeeda iga du talo maxay fali lahayd hadday og tahay waxa aan caawa samayn doono aniga iyo Cawaale. maxay oran lahayd hadday saaka telefoonka Cawaale dhankeeda ka qabsato ee maqlayso markii uu lahaa caawa fadhig waa aniga. hadday dhagta u dhigayso markii uu kala shaandhaynay liiska naagaha guryahooda lagu qayiro ee igala tashanayay tii loo xil saari lahaa barnaamijka caawa. Cambaro Allah ku cadaawi. Cawaale marka uu hadhow yimaado farxad iyo qalbi furan bay ku soo dhaweyn doontaa. sidaadi waad qoslaysaa isaguna ku soo qoslaya kula kaftamaya isagoo iska dhigaya gacalkaas sama jecel ah afooyaalka
uurow alla ku og kala fogaa qosolkaaga iyo kiisu aniga waad iga shaki qabtaa isaga sakam shaki qabta aniga maqnaanteyda iyo soo daahideyda baad aragtay iyo xanta dumarka qaarkood ku keenaan laakiin se ma ogid macalinka jidkaas cusub ee horseeda inuu yahay Cawaale iyo saaxiibadiisa kale ee lacagta leh adiguna hantidooda iyo magac dheeridooda awgeed marka aad aragto xushmad weyn baad ku soo dhaweynaysaa kuna faantaa inay ninkaaga saaxiib leeyihiin khiyaartaas haybada leh laakiin saxba ma aha Cambaroy maxaa ka micno ah Cawaale waxba ma bi'in wanaagna kulama nabca marka uu meelaha qaar igeenay waxyaalaha qaarkoodna ay horseeday kama aha Cambaro ku xadgudub waxay ka tahay saaxiibka jaamac raali gali ka farxi isla markiisa ka farxi waxaad uga baahan tahay ku fuli aniga qudaydu ma jecel inaan xuquuqdaada ku xadgudbo wax aan ka biyay ma jiraan waxba iskama bedelin gacaladii aan ku qabay iyo qiimihii aad iigu fadhid ha ka cabsan inaan iraahdo Cambaro gabowday iska fur oo gabar yar ku soo bedel markaas ma waxbaan dhib intii aan sida yeeli lahaa haddaan habeen gabdhaha yar yar isaga fool baxsad maya waxaan ku dhimay ma jiraan awdi bilayso saaxiib asaagay dhowr naagood bay qabaan haddana ka qaraafaan aqal haddaad leedahay fasax sharci ah baad ii siin lahayd fool baxsiga igumana kaliftan suuq madow dambiga kale baa ii darana adigu waxba iguma sheegan kartid dambiga aakhiro Allah naga dhaafo allow noo dambi dhaaf ilaahu tooba markii fikirkiisu halka maray buu madaxa hoos u rogtay wajigiisuna isbedelay wuxuu xusuustay inuu joogo waqtiga casarka tukan jiray waxa maskaxdiisa isku herdiyay xusuustii salaada ee hadda ku soo dhacday iyo tii macsida ee hore ugu jirtay wuxuu yiri sidee salaad kugu ansaxaysaa adigoo weli niyada ku haysta dambiga weyn ee aad caaw ku kici doontid sidee ugu bareeri kartaa inaad ilaah is hortaagtid ee naftaada iyo carruurtaadaba khayr uga barin adigoo ku tala jir inaad caaw amarkiisa jabsid ma been baad u sheegi kartaa sida aad Cambaro beent ugu sheegi doontid ee marka aad baxayso u oran doontid caaw shir dheer baa la iga soo wacay waana ku soo daahi doona maya iska dhaaf salaadaas ha isku lugoyn laga aqbali maayo iska raaxayso nafta cadaaba ka faa'iideyso waqtiga ku soo maray laakiin taasi soo akhriseed ma adigoo maanta da'daas ah baad fiska u go'doomaysa oo cimrigaaga dhamaad ceeb ku sugootinaysa ee adduun iyo aakhiraba isku caabeynaysa aaway magacaaga iyo haybadaadii lagu wada qadarin jir alla ilaah waa bacday kala fogaa sida dadku ku qabo iyo sida aad tahay allow tooba baabi barnaamijka caaw Cawaale iyo barnaamijkiisuba badaha galeen oo caaw hadaad baabiisid ma ku sii wadaysaa maya go'aankaas waa kii aad hore u fulin kari weyd waa laba daran mid door islaantaas cimriga ah ag fadhigeeda ama hablaha curdanka ah iyo cadaab aakhir raaxo la'aan ama aakhir la'aan maxaan yeelaa ma ogi bas waan tooba keenaya Cawaale iyo barnaamijkiisa bul Allah siiyo bakeeriga shaaha ah barkii oo uu isla hadalkii ku ilaawo ayuu intuu hal mar qab ka siiyay xabad sigaar la soo baxay dhididkiina cawdu ka qalajisay ayaa korkiisa dib u qooyay shukumaankiiba isku tirtiray in dhaweydba isla hadalkaas cudur buu ku ahaa wuxuu noqday laba nin oo muuqaalka mid quraka ah balse maroon joogto iyo ka dhex taagan yahay waa mid nolosha cusub ee uu sanadahan dambe bilaabay ku farabaxsanayo iyo mid uga digayo inkastoo da'diisu 60 sano sii haabanayso haddana waxaad moodaa inuu intaas aad uga yar yahay wuxuu dareemayaa firfircooni iyo xoog dhalinyaranimo oo la yaab leh dareenkaasi wuxuu ku sii kordhay sanooyinkan dambe intii uu labnaanta isbida noloshiisii hore dhibaatooyin fara badan baa ku soo maray 20 sano ee uu dunida ugu horeysay laba mooye inta kale miyi buu soo dhameystay wuxuu ahaan jiray geel jira kibir badan oo aflagaadada iyo dagaalku ay ka soo horeeyaan cidna kama heebaysan jirin wiilasha ficiis ah ee ay geeleyda isla ahaayeen way ka cabsan jireen kuwa ka yaryarna amar kulul buu siin jiray hadday ku diidaanna waa garaac jiray mid sidaas ugu ciil qabay ayaa habeen isagoo golaha jeefa ee geela cawaysinkiisa la sugaayo wuxuu damcay inuu faas madaxa ku kala jeexo mid arkayba intuu kusoo orday ka balfiyay markaas buu faaskii oo dalanbaabi iyo dhegta uga dhacay oo dacal gooy hoostana ka dakhray sida ayaa loogu bixiyay jaamac dhigay noloshii miyigu markay ku adkaatay ayuu magaalo u soo qaxay isagoo 18 jir ah wuxuu soo maray nolol iskorisnimo ah oo aad u qalafsan darbi seexad jar iska tuur xamaal iyo wixii lamid ah kadib ganacsi iyo shaqo dawladeed buu midba mar isku dayi jiray inta badan si wuxuu ahaa shaqaale dawladeed inkastoo uu weligii niyadda ka jeclaa inuu baac mushtar noqdo oo shaqaalnimada uga baxo dhowr sano ka hor ayuu gaaray inuu agaasimo guud ka noqdo mashruucii uu ka shaqeynay waa muddadaas inta uu bilaabay noloshan cusub sida dhaqaalihiisu isu bedelay ayuu dhaqankiisuna isu bedelay isbedelka xagga dhaqanka ah waxa uu horkacay saaxiibo nooc cusub ah oo uu muddadaa yeeshay danahooduna isku xirmaan dhalinyarinimadiisii reere tumasho ma ahayn awoodiisuna umaba ogoleen intii uu xaaska noqdayna
wuxuu halgan adag ugu jiray sidii uu carruurtiisa u korsan lahaa hadda uun bay carruurtii koreen qaarkoodna ka feer shaqeeyay dhaqaalihiisuna ka batay baahidii nolol maalmeedka qoyska markaasay ku furantay dirishadan cusub waa tahay intaa ayaynu kusoo afmeeraynaa qaybtii 10aad ee sheekadii Maanafay oo uu qoray Maxamed Daahir Afrax waxaan halkan idinkaga soo jeedinay anigoo ah Maxamed Xaaji Xuseen Raage inta aynu qaybteeda kale ku kulmi doono maca salaam